السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة مودن وهويني مسلمة وأنا حجابنين كون نول مقالة عاصمة dalka Holland ee Amsterdam وهويني تاجرة oo iska la mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda ee dalka Netherland waxay in muddo ahayd shaqaale nadaafadeed oo qashin ka gura mid ka mid ah shirkadaha dalka Holland. Raxma asalkeedu waa Maqribiyad ku dhalatay sanadkii 1959 magaalada Danja ee dhacda waqooyiga dalka Morocco. Wuxuu ahaa odaygii dhalay Raxma nin wadaad ah oo imaam ka ah mid ka mid ah masaajidda magaalada Danja. Raxma ayaa ku dhalatay magaaladan Danja isla markaana ku kortay. Waxay ku nooleed Raxma magaaladani muddo 16 sano ah. Raxma qof wax bartay ma ahayn, laakiin waa shakhsi wax qori kara isla markaana qoraalka akhri kara. Waxay ahayd yaraanteedii qof jecel marka ay weynaato inay ku noolaato dalka Holland. Markii ay qaan gaartayna wiil kasta oo shukaansada isla markaana doona inuu guursado waxay ku xujeyn jirtay inuu geeyo dalka Holland. inta badan dhalintii ay isku deegaanka ahaayeen waxay isku tilmaameen gabartaani jeclaatay dalka Holland. Kolkii dambe waxay guursatay wiil ay isku deegaan ahaayeen waxayna ku aqal gashay magaalada Danja. Waxay Raxma hal sano kadib Danja ku dhashay cunugteedii ugu horeysay. Ilmaheeda ayadoo cunugtaasi yar haysata ayaa waxa u suura gashay inay u guurto dalka Holland, gaar ahaan waxay tagtay magaalada caasimadda u ah dalka Holland ee Amsterdam. Waxayna ku aaday xilli uu ka jiray dalka qabow daran. Waxayna aragtay magaaladii oo wadooyinkeedii faaruq yihiin oo dadka dhan ku xariisan yihiin guryahooda. Raxma ayaa dhahday markaan arkay xaaladdan aad ayaa u niyo jabay oo waxaan ka xumaaday cimiladani qabowga daran ah oo waxaan mooday inaan soo galay xabsi kor ka furan. Dhaqdhaqaaqa aad ayuu gaabis u ahaa oo qoys kasta waxay laazimeen joogitaanka gurigooda. Sayga Raxma wuxuu u shaqo tagay shirkaddii oo shaqada ka helay. Raxmana waxay joogtay guriga malahan wax asxaab ah ama qaraabo ah oo soo booqanaya iyaduna markeeda ay soo siyaarinayso. Dhanka kalena ma garanayso afka Hollandeyska oo marka ay soo adeeganayso waxay caqabad kala kulantaa bulshada, waayo waa qof aan garanaynin afka bulshada ay la nooshahay. Saygeeduna wuu shaqo tagay. Raxma ayaa ku cidlootay guriga. Kolkii dambe waxay saygeeda ka codsatay inuu u fasaxo inay shaqaysato, laakiin saygeeda wuxuu ku dhahay maxaa ka shaqaynaysaa, hore wax uma soo baranin, dhanka kalena ma lihid wax xirfad ah oo aad ku shaqaysato. Raxma ayaa ku jawaabtay shaqo nadaafadeed ii soo raadi. Wuxuuna shaqo ugu soo helay shirkad ka shaqaysa nadaafadda magaalada. Raxma ayaa subaxii dambe shaqo tagtay, laakiin madaxii shirkadda nadaafadda ayaa Raxma ku dhahay waxaa laga rabaa in aad barato afka waddanka iyo sida loo kaxeeyo gaadiidka. Raxma ayaa labadaani lagu waajibiyey gudagashi barashadooda. Waxayna markii dambe gacanta ku dhigtay ruqsaddii ay ku kaxayn lahayd gaadiidka. Sidoo kale waxay baratay afka waddanka. Raxma ayaa jeclayd inay shaqaysato oo gacanteedana ku wadato baabuurkeeda. 3 sano oo shaqo joogto ah kadib shirkadda waxay dilacsiisay Raxma, waxaana madax looga dhigay 7 xubnood oo shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya ah. Tani waxay keentay in Raxma shaqadeeda iyo dadaalkeeda dhanka shaqada ay sii laba laabto. Waxayna noqotay mid ka mid ah gabdhaha loogu jecel yahay shaqaalaha shirkadda. Muddo dhowr sano ah ayay Raxma si hagar la'aan ah u shaqaynaysay, waxayna shirkadda u tababartay tiro shaqaale ah. Raxma ayaa filaysay in la dilacsiiyo maadaama ay soo qabatay shaqo culus oo shaqaale badan u tababartay shirkadda. Laakiin markii la gaaray xilligii dilacsiinta, Raxma waxaa ku dhacay waxaysan filaynin. Waxaa laga reebay liiska dilacsiinta. Waxaan la dilacsiiyey tiro shaqaale ah oo ayada isku darajo ahaayeen, laakiin arrinta ay Raxma qaadan weysay ayaa ahayd in la dilacsiiyey welibana xafiiskii ay ayadu filaysay loo dhiibay gabar ay ayadu soo tababartay. Tani waxay sababtay in Raxma niyo jabto, aakhirkiina go'aan ku gaarto inay shaqada isaga tagto. Marka uu qof in muddo ah shaqaale ah isaga tago shaqada, wuxuu dareemaa xoogaha walwal iyo walaac ah. Wuxuu is dhahaa halkaani ayuu ku baaba'day noloshaadii. Laakiin Raxma calaacal iyo walbahaar meel lama fariisan ee waxay bilowday inay waqtiga ka faa'iidaysato oo waxay aasaastay ayadoo kaashanaysa 3 gabdhood oo asxaabteeda ka mid ah shirkad ka shaqaysa dhanka nadaafadda. 2 sano oo shaqo joogto ah kadib, Raxma waxaa lagu abaalmariyey biladda haweeneyda ugu wanaagsan ganacsatada reer Yurub. Abaalmarintaasi waxay sababtay in Raxma mar kale kor u kacdo shirkaddeeda. Haddana mar kale ayay Raxma abaalmarin kale ka heshay boqorka dalkeedii hooyo ee Morocco. Waxayna la kulantay oo qasrigeeda ku marti qaaday boqoraddii hore ee dalka Netherland. Raxma ayaa wixii intaa ka dambeeyey waxay noqotay haweeney caalami ah oo badrooniyad ah, isla markaana maarayso tiro shaqaale ah. Waxayna sanad walba faa'iidaa malaayiin dollar ayadoona shaqaaleeda kula macaamisha dhaqan wanaagsan, maadaama ay soo aragtay cunsuriyadda iyo faquuqa oo ay ku soo shaqaysay duruufo adag. Dhanka kale, Raxma qisadeeda waxaan ka faa'iidaynaa in laga wanaagsan yahay shaqaalnimada iyo sugitaanka mushaarka billaha ah. oo waxay Raxma shaqaysay muddo dheer, haddana ma helin xoolahani tirada badan ee hadda ay heshay markii ay abuurtay shirkadda. Raxma ayaa markii ay waayeelowday waxay xilka agaasimka guud ku wareejisay mid ka mid ah carruurteeda, taa oo lagu magacaabo Umayma.